beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa xaflad soo dhaweyn ah u qabtay ugaas Cabdirashiid Sheekh Maxamed Kaynaan. Ugaaskaas oo laga soo doortay magaalada Kismaayo. Ugaaska ayaa soo booqday xeryaha qaxootiga Dadaab si uu ula kulmo beesha uu ka soo jeedo, asigoo halkaas soo dhaweyn weyn looga sameeyay. annaga hortayo wuxuu ahaa ugaas annagoo uusan noo imanin yuu ugaas ahaa oo hortana la doortay. annagana maanta waxaan caleema saarnay oo si wanaag iyo kalgacayl leh aan ku caleema saarnay oon ku soo dhaweynay ugaas Cabdirashiid Sheekh Maxamed Kaynaan yaan ku caleema saarnay. maanta cawyahanka meesha joogo dhammaan farxad bay noo tahay ugaasnimadiisa farxad aad iyo aad u weyn bay noo tahay. kii xilkiisa guto oo si wanaagsan oo firfircoon u guto allaha ka dhigo, dadka uu mas'uuliyadda u qaado kii mideeyo oo isku mid ka dhigo oo gacanta wada qabsado allaha ka dhigo. xilkiisa ilaahay baan baryeennaaye kii si wanaagsan u qabsada allaha ka dhigo, ilaahayna ha ku garab galo. annagana waxaan u sheegaynaa meel aan joognaba inaan gacantiisa midig aan nahay, ma nihin bidixda, gacantiisa midig baan nahay. waxaa laga soo doortay Kismaayo beela ha uu ka dhashay oo ama cawliyahan bale ama hoos ama soo dooratay doorashadii uu soo doortay buu nool imaad annaguna waan dooranay. Cabdirashiid Sheekh Maxamed Kaynaan Cabdille gamca furan iyo sharaf iyo walaalnimo iyo wanaag baan ku soo dhaweynay. sidii Soomaalida Jubbaland ay u qaadatay baan u qaadanaa annagana. Soomaali Nabi Maxamed oo dhan wax naga maqan malaha, waan u kulmanahay. gamca furan iyo sharaf baan ku soo dhaweynay. ugaaska jiray allaha ka dhigo, kii dadkiisa iyo dalkiisa anfacaalaha ka dhigo. waxaan ka filanaa inuu ilaahay kiina anfaca nooga dhigo oo dalkeena iyo hooyooyinkeena iyo wiilasheena iyo kulli kor u qaad ilaahay nooga dhigo oo kuna anfaca ilaahay nooga dhigo. aan ka filanaa ilaahay idin wuxuu noo ballan qaaday inuu wax kasta noo qabto oo daacad u yahay oo dalkii iyo maxaan ku dhahay hooyooyinka iyo maxaan ku dhahay wiilasha iyo kulli anfaco iyo maxaan ku dhahay noo ballan qaaday ilaahay subxaana qaadirka noo. isla dhanka kale goobta waxaa ka hadlay ugaas Cabdirashiid Sheekh Maxamed Kaynaan. ugaaska ayaa ballan qaaday in ay soo dhaweyn doonaan qaxootiga dib ugu soo laabanaya dalka. odayaasha waxgaradka culimada dhammaan inta maxay ahayd igu soo dhaweysay xafladda sharafta la ii qabatay marka horena gacanta ii fidisay. waxaan ahaa magaalada Kismaayo ugaaska lagu doortay, haddana bulshadii aan ka dhashay ayaa waxay door biday inaan soo gaaro u imaado salaamo isoo dhaweeyaan. waxaan maanta imid magaalada Dadaab, alxamdulilah ilaahay baa mahad leh. dhammaan beeshii weyneeda beelweynta cawliyahan aan ka dhashay waa igu soo dhaweysay. intaa waxaa dheer insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo anigana Allah iga dhigo ninka xilkiisa guto waajibaadkii la saarayna guto si daacad ee wanaagsanna ku guto maxay ahayd si aan mardaba lahaynna ku guto. mar haddii boqor lagu magacaabo waxaa tahay beeshaad ka dhalatay hor baad u soconaysaa, waxaad dhex gelaysaa Soomaaliyeed waxaad la qaybsanaysaa. muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo socdaan boqor u noqonaya oona jecel dadka aan ka dhashay inaan maxay ahayd inaan ku xadgudbin isagan usoo dad ku xadgudbin cid ku xadgudubtan aan jecel inaan barnaanka ka mariyo. meesha lagu doortay lagu baqray waa Jubbaland. meesha aan joogo maxay gacanta la igu fidiyeen waa muxuu ahaa wadanka Kenya gaar ahaan North Eastern way ama degmada Dadaab. ha ahaatee waxaan doonaynaa meesha lagu doortay dadka la soo celiyo ama qaxootiga la soo celiyo la soo dejiyo meesha annaga aan joogno inaan gacmo furan ku soo dhaweyno walaalnimo u muujino. waxa laali wixii dawladda Kenya ay nooga baahato ama ehelnimada ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato inaan si fiican kula dhaqmi doono haddii ilaahay yiraahdo iyo nabadgelyada xaggeeda aan aad iyo aad uga shaqeyn doono. dadka soo socda ee labada magaalo soo socda maantana inaan ka qayb qaadan doono haddii ilaahay yiraahdo wanaagooda waxtarkooda taabantooda inaan iyagana ku soo dhaweyn doono insha Allah waana ka qayb qaadan doono. Mukhtaar Xasan Ibrahim waa Bari TV xeryaha qaxootiga Dadaab.